xaflad siyar saraha loo soo agaasimay laguna taageerayay shirka maamul sameynta Jubbooyinka iyo Gedo ayaa xalay lagu qabtay magaalada Cape Town ee waddanka South Africa. xafladda ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka, ganacsato iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaana xafladda intii ay socotay lagu soo bandhigay riwaayado ka turjumayay nabadda haatan ka jirta gobolada Jubbooyinka. dadkii ka hadlay xafladda ayaa si weyn u sheegay inay taageersan yihiin shirka Kismaayo ee la doonayo in lagu dhiso maamul ay yeeshaan dadka degan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo. qaar ka mid ah dadkii ka hadlay hadaladooda ayaa waxaa ka mid ahaa sida tan: iyo dareenkooda goboleed oo ay ku taageerayaan maamul u samaynta gobolada Gedo iyo labada Jubbo. شرفت لك يسوع قاسمي حفلتها سيدة ولا سلوس قاسمي معاها دون اللوغة تشيرو تاغيريدا مامولكا قصوب ولغا نسيو جملا معنا الحرج وهوي بدونيها وحانوها هاي شركة نوعا وكلا مركز السورة بابلو وشركوا وقبصنوا أيان دعاء قاتوادعية إلهي سبحانه وتعالى وأقبله الناس الدنيا واحد مركتارا لكم إن شاء الله. xafladda lagu taageeraya shirka Kismaayo ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee ka dhacda dalkani Koonfur Afrika waxaana ay ku soo dhamaatay jawi aad u degan. Mustafa Xasan, Universal TV, Cape Town.